iyadoo ay soo ifbaxaysay inuu wada hadal siyaasadeed u furmay xisbul xaakimka talada dalka haya ee kulmiye iyo garabka hogaamiye aqoon-yahan Jamaal Ali Xuseen ee ka mid ka xisbi mucaaradka UCID horena uga tirsanaa xisbi siyaasadeedkii burburay ee Udub ayaa waxa amurahaasi ka hadlay xogayaha guud ee xisbul xaakimka talada dalka haya ee kulmiye mudane Xasan Saciid waxa uu ka warbixiyay halka ay marayaan wada hadallada u socday iyaga iyo garabka aqoon-yahan Jamaal Ali Xuseen hogaamiyo wallahi kulamadu shalaytuna bilaabeen maantana kulankii waanu yeelanay wada hadallo si wanaagsan bay noogu socdaan go'aan wali islaamana gaarin kulamo dambana way noo harsan yihiin si wanaagsan soo qaabilay intaana go'aan isla gaarina hadda wax ka badan oo inta si sheekay karnaa laakiin waxaan idin sheegayaa wada maalmood kulamo baan yeelanay wadanina way la kulmayaan wada maalmood bay iyaga la kulmayaan waan isku soo noqonaynaa fadhiyo dambe ayaa noo harsan laakiin meel wanaagsan ayay arrintu noo maraysaa marka war badan hadda aan siin karayaa ma jirto Xasan Ismaan Sabca oo isaguna ka mid ah garabka hogaamiye aqoon-yahan Jamaal Ali Xuseen ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay marayaan wada hadallada u furmay xisbiga kulmiye dawladda wadaaga dalka inaanu kulamo leenahay labada xisbi waan sheegnay shalay iyo maanta waxaan la fadhiisanay kulmiye arrimaan yarayn ayaan aad uga wada hadalay muddada oo lagu gaabatay maalmaha awadood natiijo maanaan gaadhin sidaa daraaddeed waxaan leenahay marka ay soo baxaan wax ayaan warbaahinta si wanaagsan u siinaynaa waxaa kaloo fariin gaarsiinayaa garabka iyagii gudaha iyo dibadda wixii joogay inay saa ula socdaan wixii talo iyo tusaale ana waan uga fadhinaa intaas baan doonayay inaan u sheego dadkooda